السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى maanta waxaan bilaabeynaa course cusub oo ku saabsan Windows 11 operating systemada kala duwan ee uu ku shaqeeyo computerka mid ka mid ah ayna iska leedahay ama ay maalgelisay shirkadda Microsoft isagoo runtii farshano fara badan soo maray oo DOS-ka ugu horreeyay MS-DOS sidoo kale waxaa ku jiray NT baa jiray 2000 XP-gu wuxuu ahaa farshankii aan la bilaabay ama markii aan isticmaalay computerka farshankii ugu horreeyay aan isticmaalay Windows XP buu ahaa sidoo kale haddii aynu runtii raadino history-ga Windows-ku aad bay u fara badan tahay waxaa ka mid ah Windows 7 oo aad caan u ahaa sidoo kale 8 baa jiray Windows 8 8.1 10 iyo farshankii imika ugu dambeeyay oo ah Windows 11 waqtigan imika joogno 2022 marka inta laga yimaado Windows-yadu inta badan mid waliba wuxuu la imanayay features kala duwan runtiina kuwii horena waxaad moodaa in isbeddel lagu sameynayay ama qurxin badan lagu sameynayay laakiin si guud shaqadooda ay same ahayd oo in computerkaas ay u noqdaan operating system uu ku shaqeeyo oo la hadla kernelka bay ahaayeen marka qaybta Windows-ka ugu horreeya aynu maanta qaadanayna waxay iska noqonaysaa hordhac inagoo runtii ka hadlaynaa casharkeena waxyaabaha aynu ku arki doono iyo intaynu course-kan ku dhex jirno waxyaabaha aynu ka fargaraynayno waxyaabaha inta badan uu la yimi Windows-kan cusub waxaa ka mid ah ama la upgrade gareeyay catalogan yar ee soo bandhiga news-yada iyo wararka iyo waxyaabaha bingaraysa xiisayso sida sportska oo kale waxyaabahaas runtii internetka culus baan maraynaya sababta u raagayo waxaa kaloo jira qaybtan hoose taskbar la odhan jiray ay imika ku jiraan start oo iyadana laba qaybood ka kooban qaybtana waxyaabihii inta badan aad ugu dambeeyay aad furfurtay baa halkan ku jira sidoo kale halkan waxaa yaala applicationadii taskbarka waxaan leeyahay startiga kuugu bingaraysnaa haddaad usii baahan tahay mid ka mid ah inaad halkaa ku qoran karto haddii aadan mid u baahnayna inaad all programs hadaad tagtana aad halkaa ka dhex raadin karto sidoo kale search adigoo by voice isticmaali kara oo ku raadin kara waxa agi iyo qoraalba inuu saamaxayo Windows 11-kani sidoo kale halkan recent apps-kii baa ku jira waxyaabaha kale halkan applicationska qofkaasi isticmaalo uu taskbarka ku bingarayso baa ka muuqda iyo qaybtan oo iyaduna runtii notificationska iyo saacadda iyo waxyaabaha loo yaqaano ha noqdo bluetoothka wirelesska waxyaabahaasi ay ku jiraan marka casharkeenu insha allah waxaan isku dayaynaa taskbarka inaan wax kala qoro inta ugu badanna maadaama ay iska fududahay sida loo isticmaalo computerka waxaan isku dayaynaa inaan xoogaa ka aragno settingska barnaamijkan uu leeyahay runtiina aad moodo in si fududna loo nashqadeeyey si fudud oo qof waliba fahmi karana loo dhigay oo wixii qofka isku qayb ahaba qayb la wada geeyay tusaale ahaan wixii system oo kale ku taxalluqa in runtii la wada mariyey halkan ama systemkaasi ha noqdo in systemka displaygiisa wax laga bedelayo soundkiisa wax laga bedelayo deviceskaas ama bluetooth ha noqdaan ama printer iyo scan ha noqdaan ama kamarada ha noqoto ama touchpad ha noqoto ama mouse-kan isticmaalana ha noqoto sidoo kale waxyaabihii connectionska internet connectionska iyo networking in halkan la mariyey halkana personalizationki in la qurxiyo shaashadaadii kaladhadaadii coloriskii uu systemkani lahaa runtii inaynu kuwa mid walba aynu gooni wax uga eegno oo aynu wax iska nilaahana ay noqonaysaa sidoo kale waxyaabaha aynu eegno waxaa ka mid ah inaynu cashar ka mid ah casharadana ku qaadano control panelka oo ahaa meesha ugu muhiimsan Windows-yadii hore isagoo inta badan waxyaabahuna ay ku dhex jiraan halkaysan ama meel walbaad rabto inaad
panelkii aad ka maamuli lahayd uu yahay. waxyaabaha kale aynu arkayno waxaa ka mid ah marka laga yimaado inta ku jirta dhammaantoodba inkastoo ay hoos imanayaan syntax-ka iyo control panel-ka waxyaabaha ugu muhiimsan. laakiin waxyaabaha kale aynu iman karno waxaa ka mid ah folder-ka marka la joogo runtii isaguna sida loo arrange gareeyo waxyaabaha aynu isla eegi karno. inahaasu course-keenu kule ka koobnaan doonaa. waxaana jeclahay inuu iska koobnaado si maadaama barnaamijkani barnaamij aad u yahay runtii aadna muhiim u ah. marka labaadna inta badanna qofka uu adapt la sameeyo sidoo computerka u isticmaalayo meel walba uu barto oo aanay uga baahnayn inuu waqti saa usii fara badan ku lumiyo. meesha u baahdana uu markiiba heli karayo support fara badan ka heli karayo. laakiin halkan waxaan doonaynaa inay bilow fiican u noqoto koorsooyinkan ama koorsooyinka faraha badan aynu duubayno insha allah. asalaamu calaykum.